wadankan muddo waxaan joogaa 20 sano ka badan marka wixii iskuul ahaa wixii jaamacad ahaa shaqooyin kala duwan waxaas dhan soo maray waxaan ahaa muddo adii waqti hadda gaaraya 8-9 sano ka hor waxaan ku shaqaysan jiray self employed waxaan ahaa oo wali ahay driving instructor black cab aan haya black cab qualified marka alxamdulillah laakiin waxaan damcay adiga dhowr sano ka hor waxaan damcay inaan raadiyo shaqo ay professional aanan waqti dheer ugu qaadanaynin aanan waqti dheer aanan gelinaynin barashadeeda ama horumarka gaaro si 2 sano 3 sano jaamacadan damcay xataa inaan ku noqdo oo masterka aan sameeyo laakiin alxamdulillah global net waxaan ag deganaa waa Chapel 15 sano macalinku markuu bilaabay wax yar ka bacdi waan u soo guurnay magaca xaafadaas laakiin weligii kuma fikirin IT-ga ma waxda ku riyoonin IT baro marka ilaa wuxuu kalifay macalin Cabdalla iyo walaalkeeda waxay yihiin saaxiib lilaahi asaga wuxuu yiri marka macalin Cabdalla ma soo fiirisida classkiisa waxaan bilaabay ma sanadkii 2016 Febraayo dhamaadkeeda inaan bilaabo A+ ka network plus kan isku bilaabay waxaan isleeyahay bal tijaabi ma maleena qof IT ina tahay technical qof ina noqon doonto laakiin iska tijaabi meesha uu geeyay bal fiiri taas waxay ii dhibtay inaan CCNA ku daro oo aan hadana active directory gaan sameeyo oo IT foundation ka sameeyo waxay u qaadatay muddo 8 bilood marka waxaan isleeyahay barnaamij uu macalinka sameeyay July 2016 oo uga hadlayay ardayda sida sidaan camal oo ardayda ay soo bandhigayeen maxaa la horumarka ka gaareen IT-ga ay macalinka ay casharada ka barteen daraadeed waan ka qayb galay markaas waxay gelisay hamiya hadii ardaydani ay heerkan gaareen waqtigan dhow waqtiga gaaban anigana sidoo kale insha Allah inaan sidoo kale aan ku dadaalo inaan gaaro heerkaas waxaan bilaabay inaan shaqo raadis galo April sanadka kala soo dhaafay 2017 runtii shaqada marka raadinayso qof sideeda camal oo self employed ah waqti dheer waxaan ku jira cabsi badan iyo maaragtay nerves badan ina CV diyaariso ina interview su diyaariso waxaasoo dhan waxay keenaysaa inay maaragtay nafsadaada been ku sheegto ay marba gadaal ku dhigato marka waxa loo baahan yahay ina xakamayso naftaada aad ku dadaasho ina maaragtay kala dagaalanto oo aadan aysan leeska dhigin marka alxamdulillah shaqada ugu horeysay aan interview ku yeesho waxay ahayd shaqo hawlban ku taala company hawlban ku yaala shaqada ugu horeysay IT-ga waa nerves badan cabsi badan iyo kalsooni la'aan waa jirtay laakiin ilaahay fuday alxamdulillah shaqada way siiyeen laakiin waa ka cajiiday oo waan diiday shaqadii xogaa waxaan dareemay meesha shaqada marka tagay meel xogaa ayaan faa'iido inaysan ahayn waxaan amal kugu dhacdaa Soomaaliya waxay dhahdaa mira gacanta kugu jiro looma daadiyo mira geed saaran mugtahay waxay taas kugu dhici doontaa bal laakiin ma ka shalay doobin horaan u sii socday waxay ugu kaliftay inaan markaas ka bacdi oo aan maro interview badan sidii face to face oo 10 gaaraya week 2 week 3 week u dhaxaysa laakiin waxay bartay ayada waxay noqotay shaqo iyo waxbarasho gooni ah shaqo raadiska waxay noqotay waxbarasho ayada inaan la kulmo faa'iidooyin badan aan isku dayo inaan waxaan la kulmay iyo khibrad iyo experience waxaan la kulmay inaan isku qoro mar walba interview ka soo baxo waxaan sameyn jiray su'aalihii la weydiiyay iyo inaan xasuusto aan hore ka qoro aan markaas aan isku duwo hadda alxamdulillah hadda waxa uga faa'iideeyaa ardayda hadda shaqo raadiska ah oo iskuulka marka ay rabaan inay shaqo raadiyaan oo ay weydiiyaan oo waxaan la kulmay marka waxaan uga caawiyaa waxaan la kulmay waagaas khibradeydi marka alxamdulillah waxa aan ka shalaaytoobe ma inaan shaqadii ugu horeysay diiday marka shaqada waxaan ka bilaabay waxa laga siiyay
رمضان كهذا الصودا في شغلة يقول رزعتي وحي رمضان كهذا الصودا في لحديثة شغل لندن بريدج كتالة الحمد لله وفيرست لاين سيرفيس ديسك وها marka waxaan nasiib wanaag la kulmay gabar Soomaaliyeed oo meesha ka shaqeysa ayada ay soo dhaweysay oo wax badan ay bartay oo shaqada ugu horeysa marka IT-ga tagto waxay kula noqonaysaa buur meel la saaray laakiin runtii waxa inta kala qabsanayso hal week laba week hada siiso wala qabsanaysaa hawsha say tahay oo fahmaysaa waxaad ogaanaysaa in macalinku wuxuu baro dhan ay waxa ku anfacay yihiin oo waxa lagu shaqeynayo dhameyntaas yihiin marka alxamdulillah shaqadaas waxaan waday 6 bilood waxay igu gudbisay shaqada hadda ka shaqeeyo oo aan bilaabay January sanadkan 3 bilood aan shaqeynayaa shaqo waxa weeyaan alxamdulillah aad aan uga helay shaqadan waxay ku taalaa Liverpool Street igama foga waa Lugays waxa weeyaan company Mareykan Ingiriis oo soo tagay oo financial investor company weyn waay wuxuu ku leeyahay xafiisyo Asia sida Japan Tokyo Sydney Melbourne Mareykanka meel kala duwan Europe sida Amsterdam Frankfurt badan yihiin headquarterkiisa waxa weeyaan Ingiriiska London meeshan ka shaqeeyo oo Liverpool Street iyo Mareykanka Denver marka shaqada interviewga horta waligay aniga interview markaan aadayo saan hadda ahay baan u aadaa oo anu xijaabkayga qabo oo sideeda cabaayadayda waxay iska qabaan iska tagaa marka kama walwalo wixii ilaahay karta la helayaa marka waxaan interview actually ma sahlanin oo waxay ahayd interview oo hal interview ahaa laakiin 3 qof ay ka qaatay dhowr bari u socday soo marka ma ogaanin inaan shaqada helay in kale ilaa ay adiga week ka bacdi waxaan isirey okay shaqadaas ma adan helin marka week ka bacdi soo waceen oo ii sheegeen inaan shaqada helay marka technical question badan la weydiiyay oo ku saabsan networka Cisco CCNA u badan alxamdulillah ilaahay fuday marka shaqada waxaan sameeyaa maalin horta run ahaantii shaqada markaan fiiriyo shaqada waa xafiis aad u weyn oo dhowr dabaqan saaranahay oo marka intaasoo qalqiyo meesha ka shaqeysa wax xijaaban aan kaliya wax kale oo xijaaban meeshaan ma arko muslimiin waa jiraan laakiin muslimiin muuqda oo sida camal muuqda ma jiraan marka waliga laga ma walwalo maxaa la dhahaa waa qofa diinta islaamka inaa muujiso ha ka cabsanin ilaahay wuxuu ku karto waa helaysaa adiga skillkaaga ay raadinayaan dadkani ma kala jecla adaa xijaabanta ayadaan xijaabna adaa taqaano maxaa la shaqada hawsha si loo qabto oo tahay candidate-ka ugu fiican markaas interviewga shaqada waad helaysaa marka aniga hadda shaqada marka daily today waxaan sameeyaa aniga waxaan ahay first point of contact waxay dhahaan of BAU waa business as usual so wax walba soo dhaca telephone kasto soo dhaca ticketkii noo soo dhaca dhoo maxaa la Amsterdam wax ka halaabeen ama Tokyo wax ka halaabeen printerkii ama server hebel ma shaqeynayo ama port hebel halaysan waxaas aniga marka ugu horeeya inaan fiiriyo oo troubleshoot ku sameeyo ay tahay waxaan garan waayay waxay la shaqeeyaa labo oo maxaa la dhahaa senior network engineer marka ayaga caawimaad weydiiya shaqadii waxay ku fiican tahay networking-ka dhan faraan ku leeyahay sababtoo meelaha qaarkood waxa laga yaabaa kambaniyada qaarkood aad u balaaran yihiin in meel yar oo kaliya window yar laga tuso oo lagu siiyo access intaas kaliya ah laakiin shaqadan hadda wax walba sida firewall-ka rule-ka in la bedelo troubleshooting-ka implementation-ka documentation writing-ka xataa even anaa waxaan u qaabilsanahay hadda maalmahan inaan aado waxay dhahaan cap meeting change request so wax walba iskama samayn kartid wax haddii bedel u baahan yahay waa inaad bedelka aad dalbataa change request waxay dhahaan marka week kasta saacad oo waxaa jira qof team kasta ay ku sameynayaan inay soo bandhigaan waxay bedelayaan ay sababta u bedelayaan iyo reasonka u bedelayaan wax dhan ay sharxaan marka waxaas waxay baraysaa professionalism marka alxamdulillah shaqadan horta wax badan waxaa ka faa'iiday fair professionalism badan ka jirta miitina badan oo dadka sareeya iyo managerada sareeya la yeelana
marka alxamdulilah wax badan oo faa'iido badan wax badan ka faa'iiday insha Allah taala waxay u eg tahay shaqo aan horumarka gaari doono insha Allah